waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ummadda reer Hirshabeelle inaan la wadaago muxuu ahay warar ilaa iyo saakay la isla dhaxmaray oo social media hana wax badan la soo galiyay dad mas'uuliyiinuna ay soo galiyeen oo la xiriirta safarkii labada madaxweyne hore iyo wafdiga la socda ay ku tageen magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne sidaad la socotaan waxa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airportka oo marna xiran markii roobdo marna furan markii uu qalalo xalay muxuu ahay 8 saac iyo bar ayaa waxa soo wacay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle oo ii sheegay in wafdigaas oo Beledweyne ku soo wajahan yahay maadaama asagoo hadda uu Beledweyne joogo anigana hadda xamar aan joogo waxaan u sheegay in muxuu ahay hadii roobabka ilaa xalad da'ay ilaa fiidkii da'ay hadii ay muxuu ahay aysan dhibaato xoog leh aysan gaarsiin in aniga iyo ra'iisul wasaaraha naftigeenu aan u soo socono marka gurmadkaas guud oo dadka loo sameeyna inay berrito oo maanta ah inay maaragtay ma sha Allah ay baraka badan meeshaas ka dhici doonto sidaasan muxuu ahay anagoo walwal ka qabna xaaladda airportka iyo xaaladda muxuu ahay runwayga ayaan ku kala seexanay saaka 6 waxa ii soo diray warbixin aan idila wadaagi doono joint air services muxuu ahay ururka la yiraahdo oo hawada muxuu ahay information-keeda lagu wadaago oo dawladda iyo amisom iyo UN iyo kulli information-ka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan waxa la ii soo diray warbixin ah in 600 mitir oo runwayga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan sawirradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirixoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn maadaama runwaygu uu yahay 200 mitir haddii 600 mitir ay halaysan tahay 1400 laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helicopterada recommendation-kaas la ii soo diray 2 saac iyo 27 daqiiqo waxaan wacay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu airportka ku jiro waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo iraada madaxweynuhu airportka waa sidaas anaga naftigeenu standby aan ku jirnaa runtii aad aan ugu xumahay madaxweyne xasan sheekh si kulul ayuu wuxuu yiri adiga madaxweynaha tahay maxaa ka galay mataqaana civil aviation runtii waa runtiis badana anigu mataqaana howlaha diyaaradaha iyo wixii daga iyo wixii kaca iyo kuma mashquulo laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiim oo yahay laba madaxweyne mataqaana hore xildhibaano xaaladda laga deyrinayo safarka oo yahay high profile يعني قوان كدقيدة إيا كعنتا إن أنا قاطع أيام قوان صدق وحنا مدحوينه وارنتا لكن ما أنت وكلام ما أنت ماشي أسوي كرنا على مسؤولية ده أنا يفوشا أنا قوان كاس قاطي بل الآن سجنه المين إلى 5 ساعة لحساء محو هاي إنه يقال الشعب اللي جابه رنتي حريرك على سميني محو هاي دتك دول كجوجا يأمسهم iyo guud ahaan muxuu anaga Hirshabeelle dadka jooga xaaladda runwaygu waa soo hagaagaysi laakiin wali recommendation wuxuu ahaa diyaaradda oo mataqaana weyn inaysan muxuu ahay aysan isku digi karin macluumaadkii aan air operations ka aan isla qaybsanay iyo message-yadii hadda doontaan waa idin qaybsan karaa recommendation-ka ugu dambeeyay wuxuu ahaa Fokker 50 inaysan ku digi karin oo waliba raran oo wada buuxda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen deegaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan door bidaynay inaan maanta runwayga baxnaanino berrina ay baxaan aniga naftigaygu hadda berrita inaan baxaan rabo Beledweyne aan aado ayaa ii qorshaysan nasiib darro prime minister ko raaci rabay oo ka faa'iideysan rabnay berri safar ayuu galabta yahay ma suurta galayso waxaan rabaa marka wararka social media la gelinayo la leeyahay Hirshabeelle noo diiday muxuu raadaarana la ka dansaday dawladda noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha waxaan si gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku sameyn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii
si unprofessional u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweynayaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno waa ku degi karnaa go'aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go'aankaas baylotku iska male rakaabkuna iska male waxaa iska leh hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulku ku sugan yahay shirkadaasu waxay ku xadgudubtay muxuu ahay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada waqtigeedaanan muxuu ahay aan kala xaali doonaa hadda iyo dan diyaaraddii walwal badanayna gelisay inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha aysan ka jawaabeen runtii walwalayna gelisay in diyaarad intaasoo mas-uula wadda inay raadiyihii laga wacay response ka bixi weyso oo iyadoo indhala degto waxaa kaloo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay ranweyga ku degto dhaaftay soo wareegtay ku soo noqotay riskiga intaas la eg iyo mas-uuliyadda intaas la eg iyo tahlukada intaas la eg shirkadaasaa qaadatay waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo muxuu ahay iyo labada madaxweyne hogaaminaa hadday nabad ku degeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annagana kurbadii waa naga degtay laakiin sida ay yeelaan iyo sida maanta wuxu dhaceen si laga fiican yahay ahayd horta sida muxuu ahay dhowr jeerna aan u sheegay waxaan rabaa inaan idiin sheego si kooban gurmadka fatahaaddu wuxuu ahaa 3 fays fayskii koobaad oo ah baadigoobka iyo gurmashada iyo soo badbaadinta dadka ama biyuhu go'doomiyeen ama meelal aan la geli karin ku jira waa noo dhammaaday wixii dhinta waa dhinteen allah u naxariisto wixii dhaawaca ilaahay ha u booga dhawo fayskaas waa dhammaaday waxaan hadda ku jirnaa fayskii labaad oo ah samafalka xagga cuntada xagga biyo dhaaminta xagga hooyga xagga daawada xagga magaalada nadiifinteeda xagga dadka guriyihii inaan meeshii ku celino ceelasha kolorin in lagu shubo magaaladii magaalo lagu noolaa karo inay noqoto biidni illaahi tacaala usbuucan ama usbuuca dambe waxaan rajaynaynaa xataa fayskaas naftigiisa inuu noo soo dhammaado kadibna waxaan bilaabi doonaa fayska saddexaad oo ah dib u kabashada oo aan markaan dhinac walba ka fiirinay aan u baahannahay in 5 mashruuc oo arrintaas wax looga qaban karo in la fuliyo koow airportka waxaa soo dhibaataha ay ka dhaceen maadaama magaaladu muxuu ahay magaalo mataqaana dhinac ka go'doona ay tahay meesha kaliya oo samafal looga sameey kana horta ay tahay airportka iyo halkaas jidoo noo furan airportka in laga shaqeeyo waa mashruuca noogu koobaad deeq bixiyaal fara badan iyo dawladda iyo mataqaanaan aadan ugala hadalnay rajo fiicanna waa kaleenahay midda labaad waa in muxuu ahay fatahaadda naftigeeda webiga howl laga qabto biyo xireenkaas la sameeyo magaalada biyaha laga leexiyo tan saddexaad waxa waaye magaaladu waxaan hadda cabsi ka qabnaa oo ilaahay ha naga badbaadiyo dadaalna aan ugu jirnaa xagga biyaha in mataqaanaa cudurrada mataqaanaa shubanka iyo inay bilowdaan magaaladu waxay u baahan tahay biyo gelin in la sameeyo dhammaanteed biyo gelin in loo sameeyo mashruucaas mashruuca saddexaad waaye mashruuca afraad waxa waaye jidadka oo muxuu ahay ii sheeg biyuhu burburiyeen ilaa 50 kilomitir oo magaalada jidada in ayagana la sameeyo ugu dambeyn biyihii beledweyne ka soo fatahay oo soo dhaafay waxay hadda rafaad ku hayaan dhul beereedka u dhaxeeya beledweyne buulo burte haddana waa soo qaadeen dhul beereedka u dhaxeeya jowhar meesha la yiraahdo jalalaqsi iyo buulo burte noloshii dadka oo beeraha ku tiirsaneed iyo magaalooyinkaas kaleeto ilaa balcad ilaa mahadaay runtii mataqaana dadka noloshooda ayaan cabsi ka qabnaa xilliga soo socdo deerta 5taas arrimood ayaa noo qorshaysan inaan wax ka qabanno biidni illaahi tacaala goodwill fara badan iyo dareen fara badan oo fiicanna arrintaas waa kala kulannay